salaan kadib waxaan aad iyo aad idinka mahadcelinaynaa soo ajiibidda dacwaddan iyo ka soo qaybgalka daahfurka barnaamijkan oo runtii ah barnaamij aad iyo aad muhiim u ah aan isleenahay wax badan buu wuxuu ku soo kordhin doonaa tacliinta sare waa idinka mahadcelinaynaa waana ku mahadsantihiin intaa kadib caawa halkan waxaan u joognaa daahfurka barnaamij waxbarashada heerka labaad oo ay fulinayso jaamacadda IUIU ee ku taalla Uganda ayna marti gelinayso jaamacadda Boosaaso runtii labada jaamacadood waxaa ka dhexeeya xiriir muddaba ahaa xiriirkaas oo ku qotomay in ay iska kaashadaan dhanka waxbarashada oo ka mid ah qayb caawa aynu u fadhina halkan qaybaha cilmi baarista oo runtii aan rajaynayna insha allah waqtiyo dhow in ay programyadooda aan idiin soo bandhigi doono iyadana iyo tan saddexaad oo ah capacity building ama in ay maaragta isdhaafsadaan tababaro annagoo rajaynayna jaamacaddaas oo IUIU ah jaamacad weyn in ay in badan laga faa'iidaysan doono insha allah intaa kadib caawa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in jaamacadda IUIU iyo jaamacadda Boosaaso ay halkan ku daahfurayaan program master ah oo ka kooban laba qaybood labadaas oo kala ah Master of Public Administration oo leh laba takhasus oo ah Local Government iyo Human Resource Management iyo Master of Sharia labada master oo noqon doona runtii aan isleenahay waxay soo kordhin doonaan in wax badan baahi badanna loo qabo runtii waliba gaar ahaan haddeer waqtiga kan oo ay Puntland ku jiro waqti aad iyo aad looga shaqeynayo horumarinta iyo kor u qaadidda adeegyada dawliga ah gaar ahaan adeegyada dawladaha hoose oo guud ahaan takhasuskani uu yahay takhasuska public administration takhasus u sahli doona ama ay soo saari doona kawaadir badan oo fahankaas iyo maaragta barnaamijka programkaas guud ee dawladdu wado qayb badan ka noqon doona programkan wuxuu khaas u yahay la yahay oo aan rajaynaynaa in uu maaragta muxuu ahaa wax badan sahli doono waa ka duwan yahay programyada ah distance learning-ka ee qofku intuu buugga soo qaato uu noqon doono qof casharada soo akhristo imtixaan xaadira wuu ka duwanaanayaa waxuu noqon doonaa barnaamij ardaygu galaas uu qaadanayo laakiin galaasku uusan ahayn galaas face to face waxaa ula jeedaa galaas qol la soo xaadiri doona ama hool la soo xaadiri doona uu noqonayo galaas lagu qaadanayo zoomka casharadoo dhanna ay macallimiintu si practical ah ardaygu uu weydiin karo la discuss garayn karo saacadihii caadiga ah oo loogu talagalay in casharka la qaadanayo wuxuu sahli doonaa in qofku isagoo shaqadiisa iyo gurigiisa iyo deegaankiisa jooga oo runtii maaragta wax badan uu faa'iidi doono oo maaragta professorada casharada bixinaya iyagoo meeshooda jooga ay ka faa'iidaysan doonaan waxaan rajaynayaa inuu noqon doono wax maaragta muxuu ahaa weyn in uu soo siyaadin doono ilaa hidankiis waxaan kaloo insha allah laga shaqayn doonaa programkan ardada dhiganaysa ee ka faa'iidaysanaysa marka ay isregister gareeyaan kadib ma noqon doono yacni sidii classeska ama subax baa la dhiganaya ama galab baa la dhiganaya ama habeen baa la dhiganaya laakiin wuxuu noqon doonaa mid munaasib ku ah dadka daraasada dhiganaya sida ay u qaadan doonaan iyadoo aan runtii in badan yacni jaamacadda IUIU ee programka bixinaysa iyo professoradoodaba aanu ka codsannay ama aan maaragta kula heshiinay in ay barnaamijka bixintiisu uusan noqon maaragta ardaygii dhiganayay ee ka faa'iidaysanayay mid ka dhexgala shaqooyinkii iyo hawlihii uu hayay ee maaragta la isku aadiyo la isku ajistagarayo macallinka xagga ka dhigaya mashquulkiisa iyo ardayga halkan dhiganaya mashquulkooda waan rajaynaynaa in uu noqon doono maaragta mid marka si fiican looga faa'iidaysto runtii programkan masterka ahi wuxuu bilowday kadib markii aanu sanad jaamacadda wada wadnay barnaamij postgraduate diploma in management and teaching at high education ah postgraduate-kaas oo sanad ahaa 2 semester ardadii ugu horeysana ay dhameeyeen bishii hadda May dufcadii koowaad ay dhameysay
runtii aan isleenahay wax badan baa laga faa'iiday wax badanna waa laga soo bartay markii programkaasi uu marka noqday mid maaragta keenay ama faa'iido badan keenay ama guuleystay baa waxaa loo tilaabsaday steepkan ah in bal master programmeska maaragta muxuu ahaa lagu xojiyo markaa kadibna waxaa la eegay war maxaa hadda baahideedu taagan tahay oo dadka iyo dalkaba maaragta muxuu ahaa dan badani ugu jidhaa maxay joogaan in ardadii dhigatay bachelorskeeda ee rabay in ay maaragta meel sare ka sii gaaraan hadda baahida ugu badan ay taagan tahay maxaan lahayn oo aan hadda ka soconsaysan u noqon wax duplicate ah oo meel hore laga bixinaya ama jaamacad hore masterka ay bixinaysay oo waday sidaasay ahayd sababtii ugu badneed oo maaragta lagu select gareeyay waxaan rajaynaynaa insha Allah inuu noqdo maaragta muxuu ahaa programkani mid in badan laga faa'iideysto runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa wasaaradda waxbarashada oo programyada tan iyo barnaamijyadan kale iyo guud ahaan tacliinta wadankaba qayb lixaad la ku leh aan rajaynayna insha Allah inay inta iyo in ka sii badanna si support gareeyaan programmeska noocan oo kale ah markoodii horena qayb ka ahaa yani tala bixinta iyo kormeerka guud iyo mar walba waxa loo baahan yahay iyo baahiyaha la wadaagida iyo maaragta muxuu ahaa ka shaqeyntaba ugu mahadcelinayna runtii wasaaradda wasiirku ugu horeeyo oo barnaamijkii hore ee postgraduate-ka ahaana isagu daafuray caawana mar labaadina la jooga aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa insha Allah in uu aynu inagoo dhan ka wada faa'iideysan doono waxaan rabaa inaan xuso programkan imtixaanaadkiisa dabcan iyagu waxay noqonayaan in waxa lagu kala gelayaa Garowe jaamacadda Boosaaso Garowe iyo jaamacadda Boosaaso labada xarumood baa imtixaanka lagu kala geli doonaa marka casharkana qof walba gurigiisa iyo zoomkiisa ka qaadanaya aad iyo aad baa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaan jeclahay inaan halkan ku soo dhaweeyo madaxa martida inoo ka timi jaamacadda Islamic University in Uganda waxaan jeclahay inaan soo dhaweeyo Dr. Salim Mohamed Bizazo oo ah Director Center of Postgraduate at IUIU. Welcome to the stage, Dr. Mohamed Bizazo. As we launch the Master of Sharia and Master of Public Administration, Human Resource Management and Local Government Specializations, hosted by the University of Bosaso Garowe, facilitated by the Islamic University in Uganda. I'm Dr. Salim Mohamed Bizazo. I'm the director of the Center for Postgraduate Studies at the Islamic University in Uganda. As we launch these master's programs, I want to assure everyone, those who are in charge of the education system, those who are in charge of the Islamic University in Uganda, those who are in charge of the University of Bosaso Garowe, and all the well-wishers, that Islamic University in Uganda has the capacity to handle master's programs because we have an experience that goes back to 2001 dealing with these postgraduate programs. I also wanted to assure this August gathering that we all have PhD programs, Doctor of Philosophy programs in many areas, meaning if we launch these programs and we do them successfully, continuity is going to be very simple because people can now transit from master's degrees into PhD programs. We want to be having so many doctors, so many holders of PhDs in a short time within the Puntland state of Somalia, as well as Somalia in general, because we believe with the PhDs, with master's degrees, we can make a positive contribution to our society, our state, and our ummah. We also have this belief that when we start these postgraduate programs at master's level first, the quality of research in our two universities, the quality of knowledge creation in our two universities, the collaboration, the networking, the exposure will also go up. And most importantly, our identity as Muslims will also go up because we always talk about innamal mu'minina ikhwan, al-Muslim akhul Muslim. But how are we going to have this brotherhood when I am in Uganda and Dr. Ali is in Garowe? But when we have such a program, it means we are going to be
together now as Muslim brothers and sisters, and we can do so very much. I'm very sure this collaboration is going to bring us the very best, and as IUIU and as a director, Center for Postgraduate Studies, representing the university here, I can assure you that we have everything that we need to deliver the best master's programs, since those who have done the programs from IUIU and are also here can give evidence and, attest to the fact that we have the capacity to deliver these programs. I also want to assure the authorities we have around, the Deputy Speaker, the Minister of Education, that the university called Islamic University in Uganda, also known as Al-Jamiat al-Islamiyya fil Uganda, has all the required compliance that you need to the National Council for Higher Education, to the Inter-University Council of East Africa, the Quality Framework System of Uganda and the region, so we can be trusted. We have quality staff, we have the experience, and we do so many things that make our postgraduate studies the very best, not only in Uganda, but the region in general. So I believe that when we start these programs, even the sky will not be the limit. People normally say the sky is the limit, but I want to say even the sky will not be the limit in this case, because we are going to approach this with a brotherly approach. We are brothers. I've come here, I've enjoyed the best food of my life at Grand Hotel. Can you imagine this? And I've enjoyed the place so much, meaning when we do these programs with a brotherly heart, then we are going to be the very best possible. And I don't want to think of any challenge. I only want to think about opportunities, because that's the only thing that we can look forward to, opportunity. The challenges, we are so much ahead of them. We only need to start, and everything will be at its best. Thank you very much. Master program iska kaashan doonaan labada jaamacadood sida horey loo sheegay horey waxa u socday postgraduate diploma oo education ah haddana waxa ku soo biiray labada tan kuliyadood oo kala ah public administration oo wadata laba takhasuska human resource management iyo sidoo kale takhasuska dawladaha hoose sidoo kale master oo shariica Islamic shariica sidaas waxay noqonayaan marka laba faculty iyo departmentiga education faculty information ka ku saabsan waqtiga iyo tuition fee-ga dhammaan waxaad ka heli doontaan jaamacadda insha Allah markii aad soo booqataan aad xogta oo dhameystiran xafiiska qaabilsan macluumaadka ku saabsan postgraduate-ka aad ka heli doontaan mar labaad iyo mar saddexaad waan idinka mahad celinaya inaad barnaamijkan soo ajiibteen waxaan jecelahay markaan inaan u sii galno martida barnaamijka kan iyo madaxda kale ee jaamacadda kelmadiisa waxaan jecelahay inaan u yeero Dr. Mahmoud Sheikh Osman gudoomiyaha guud ee jaamacadda Boosaaso soo dhaw gudoomiye dhammaan soo qaybgalayaasha sharafta leh ee barnaamijkan ee ugu horeeyo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada wasiir ku-xigeenka wasaaradda garsoorka maamulka jaamacadda Boosaaso marti sharafta bahda saxaafadda dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka salaan kadib waxaan rabaa kaliya inaan caddeeyo furaska way imaadaan haddana way tagaan laakiin waxaa yar oo kaliya dadka ka faa'iideysto barnaamijka markii hore wuxuu ku bilowday barnaamij diploma ee labada jaamacadood dhex maray waana sida fiican ee markii la tijaabiyay shayga yar in loo gudbo shayga ka weyn saasay ku fiican tahay labada jaamacadood jaamacaddaas oo barnaamijka bixinaysay iyo jaamacaddaana hoosta garaysay faa'iidada waxay u soo noqoni doontaa ugu dambeyn ardayda ka faa'iideysato waxaan rabaa ardaydii barnaamijkii diplomka dhammaysatayna هاي دبلومة ذا أرديد لما يستين إن نما هاد عليو ونا هنبليايو
ardayda jecel in ay digriiga darajada ka sarreysa diyaariyaanne waxaan ku tartarsiin lahaa ama ku dhiirigelin lahaa barnaamijkan inay ka faa'iidaystaan sidoo kale xiriirka sii xoogeysanaya ee dhex maraya labada jaamacadood ee jaamacadda boosaaso iyo jaamacadda IU iyadana waa bogaadinayaa insha allahu tacaala khayr fara badan idiin rajaynayaa wax walba waxaa laga yaabaa barnaamijka mirihiisa inuunan guranin qofka barnaamijka ka shaqeeyey qofka u safray qofka u soo safray laakiin mirihiisa qofka keliya ee goosanayay inuu yahay ardayga barnaamijka ka faa'iidaystay aad iyo aan idinkugu mahadcelinayaa dhammaantiin kasoo qaybgalka iyo dhiirigelinta barnaamijka aan ugu soo ajiibteen sidoo kale waxaan ku faraxsanahay ugu dambeyntii baaxadda ay samaynayso jaamacadda boosaaso xiriiradeeda dibadda iyo xiriiradeeda gudaha iyo taabagalkeeda ama horumarka sida degdega ah ee ku socotane qof walba oo ka tirsan ama u nisba sheegta jaamacadda oo u hambalyanaya aad iyo idin wada salaamaya salaanta islaamkaan idinku salaamaya assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay gudoomiye maxamuud sheekh cusmaan haddana waxaan jeclahay inaan soo dhaweeyo dhowr daqiiqo aan siiyo sheekh mukhtaar sheekh maxamuud gudoomiyaha minhaaj garowe soo dhawo sheekh waan ku faraxsanahay runtii programkan caawa halkan lagu daahfuray jaamacadda boosaaso iyo jaamacadda IU ay ka wada daahfurayaan oo ah waxbarashada heerka labaad oo runtii bulshadu ay adag u baahan tahay ardayda aan nasiibka u helin inay heerka labaad dibadda aadaan inay gudaha ka helaan oo deegaankooda ay ugu timaado aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin labada jaamacadood waana soo dhaweynaynaa runtii anigu gaar ahaan insha allahu tacaala ardayda ka faa'iidaysta ayaan ka mid noqon doona haddii ilaa hidmo waagii hore haddaad akhrido culimmada tarjamadooda waxaa kutubta ku arkaysaa akhada can fulaan can fulaan can fulaan wuxuu ka qaatay hebel iyo hebel iyo sheekh hebel iyo sheekh hebel ba cilmi ka qaatay hadda waxaa la marayaa 2021 cilmigii ahaa akhada can fulaan wuxuu isu bedelay akhada can jaamicati fulaan can jaamicati fulaan digreegii wuxuu ahaa jaamacadda bariga africa mastertana insha allahu tacaala boosaaso ayaan ka diyaaran doona haddii ilaah idinkiis waxaan ku faraxsanahay ustaadkaygii jaamacadda boosaaso bariga africa ustaad maxamed diyaashi oo ah usuul fiqiga ardayda noo dhigi jiray inuu maantana maamulo ka yahay jaamacadda boosaaso oo aad iyo aad baan runtii arrintaa ugu faraxsanahay juziintum khayran dhammaantiin aad iyo aad ba umahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay sheekh mukhtaar halkan waxaana la fadhiyaa arday badan oo jaamacadda Islamic University kasoo qalin jebisay qaybaheeda kala duwan ee digriga iyo masterka kuwaas oo runtii boosashono sharci maanta ka jooga deegaankan aynu kuloonahay waxaan jeclahay inaan soo dhaweeyo Luqmaan Yaasiin Geele oo ah madaxa xafiiska cilmi baarista jaamacadda bariga Afrika oo kamid ah ardayda hore u soo qalinsay jaamacadda Islamic University in Uganda soo dhawo Luqmaan marka Luqmaan digri iyo master kale xaggaas ku soo qaatay nolosha xaggaas iyo waxbarashadeeda waxaan jeclahay khibradiisa inuu la wadaago dad badan oo daneynaya Islamic University in Uganda soo dhawo Luqmaan anigu maanta meeshaan wax badan aan ka dhaho uma imaanin just waxaan u imaaday kaliya inaan labada dhinacba assurance siiyo jaamacadda IU-na inay aragto meeshu inaysan saxaro ahayn dadkeedii joogaan jaamacadda Boosaaso dadka soo geli doona inay arkaan in meeshu tahay meel wax laga soo bartay dadka ka soo baxayn at least ay wuxuun samaynayaan marka assurance-gaas labada dhinac baan u imaaday inaan meesha ka sameeyo jaamacadda Boosaaso ku maasantay casuumaadii noo soo fidisay hal wax kaliya aan dhihi lahaa anigu barnaamijyada noocan oo kale ah sustainability-gooda wax looba maahan inta sii joogi doonaan wax looba maahan ma 3 years buu furnaanayaa ma 2 years buu furnaanayaa ma 5 years buu furnaanayaa wax la sheegi kara maaha fursaddu hal mar bes bay joogtaa waana caawa marka waxaan dhihi lahaa intaan ku tashan lahayd next year iyo next 2 years next 3 years
waxaa ku tashata inaa maanta isdiiwaan gelisid maanta waxbarashada bilowda sababtoo ah intay sii socon doonto wax la hubo maaha marka intaas keliya aan dhihi lahaa jaamacadda Boosaaso runtii waxaan ugu mahadcelinayaa ugu hambaliyaynayaa dadaalka faraha badan oo aaminsanahay in degree laga soo kaxeeyo IU halkaan la keeno inaysan ahayn wax aad u fudud runtii determination fara badan iyo sacrifice fara badan baa ka dambeeya intayna kale gurigeena noogu imaateen waxaa idin leeyahay fursaddan aan ka faa'iidaysano runtii it's a lifetime hadda adduunkan waxaa ka jira constant learning fara badan Soomaalidu waxa u yaqaanaan luxjiidasho dadka kale wadamadaas ku nool qof waxa arkaysa 50 sano jira laakiin markuu 2 sano joogo way soo qoraya 3 sano markuu joogo soo qoraya marka iska luxjiidano fursaddu mar baan haysanaa xogaaga shilmaadkan aan iska bixino shahaadooyinkan aan qaadano cilmigana abuurno we never know isbedelka ay ku keeni doonto nolosheena marka runtii fursaddan aan ka faa'iidaysano mar badan leeyahay jaamacadda IU waxaan kaga mahadnaqayaa inay aqoontii xagga taalay ay halkaan keeneen runtii caawa waxaa ku jirta presentationkiisa inuu ku hayay our students can attest to this, can testify this. Marka anagu waxaan leenahay we can attest to this and we can testify this. Waxaan uu sheegayo wax hadda aanu been aan ku arkay ma lahan kulligood wax jira quality uu sheegay waa jirta supervision research uu jira hal wax baan isleeyahay halkaan fursad bay ku noqon kartaa oo flexibility oo halkaan ku fiicnaan doona sababtoo ah markii jaamacad kale idin dhaxayso waxa isleeyahay adeeg fara badan iyo problems fara badan baad kaga nasan doontaan marka waa fursad kale aan ka faa'iidaysanahay leeyahay mar labaad dhamaantiin waxaan ku salaamayaa salaamka assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته anaguna aan iska dabageeyay digriigayga waxaan ku qaatay jaamacadda Boosaaso masterkana waxaan ku soo qaatay Islamic University in Uganda waxaan diyaariyay course-ka public administration gaar ahaan takhasuska dawladaha hoose marka waxaan jecelahay rag badan oo isku tiim noqono inaan helo insha Allah haddana waxaan jecelahay inaan u galo martida qiimaha badan oo inoo joogta waxaan jecelahay maadaama halkan uu ku jiro course aad muhiim u ah gaar ahaan maamulka dawliga iyo takhasuska dawladaha hoose inaan halkan ku soo dhaweeyo agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta dawladda Puntland Maxamed Cali Nuur Juba soo dhawaada agaasimaha AIU iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee jaamacadda Boosaaso madaxdeeda iyo qaybaheeda kala duwan ardayda dhammaan ka soo qaybgalayaasha waxaan ku salaamayaa rag iyo dumarba salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan waxaan aad u bogaadinayaa fursaddan ay abuurtay fududeynaysana AIU oo ay ku aadan master degree-ga oo inoo fududaatay inaan ka helno Garowe oo public administration-ka qaybaha kala duwan ay ka mid tahay human resource-ka iyo local government-ga iyo Islamic shareeca oo dhammaan ay halkaan ay nooga soo fududeysay AIU waxaan kaloo bogaadinayaa maadaama anigu aan muddo ka shaqeynahayay dawladaha hoose ilaa iyo muddo 15 sano ay badanaana ay tahay shaqooyinka dawladaha hoose shaqo la xiriirta ka qaybgalka iyo la tashiga bulshada qaybaheeda kala duwan iyo gaarsiinta adeegyada bulshada iyo dhammaan waxyaalaha bulshada ay u baahan tahay iyo kor u qaadidda adeegyada la rabo in bulshada la gaarsiiyo ay mas'uul ka yihiin dawladaha hoose taasoo fududeynayso waxyaalo badan dhisaysana dawladnimada iyo systemka la rabo in la gaaro dabcan maanta iyadoo master degree ah ee fursad ay noo yeeshaan ninkii ugu horreeyay oo ka qayb qaata ayaan noqonayaa insha Allah fursaddaas anoo markayga horena dee jaamacadda Boosaaso ee gaar ahaan Garowe aan ahaa dadka ugu horreysay ay first degree-ga ka qaato intii halkan ay ku sugneed Garowe haddana waxaa fursad weyn inoo ahayd inay meesha hadda ay dhisan
ee jaamacadda ku shaqayso dadka ugu horreeyay bilaabo in fundraising loo bilaabo meeshaas la dhisana aan ahaa dadka ugu horreysay ku kontribuuyareeyo insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inay fursaddaas aan laga wada faa'iidaysto bulshada qaybaheeda kala duwanna ay fursad u helaan waxaan kaloo ku soo engage garayn doonaa insha allahu tacaala dhammaan maayariska degmooyinka joogo inay fursaddaas iyaguna ay ka faa'iidaystaan maadaama ay tahay wax jabtarkooda ah oo fursad u siinayso shaqooyinka maalinlaha ah ee wadaan korna u qaadayso aqoontooda iyo capacitigooda si ay u helaan waxyaalo badan iyaguna ay kaga faa'iideeyaan iyaguna ay ka faa'iidaystaan insha allah waxaan rajaynayaa rag badan baa hadda joogo degmooyinka iyaguna diyaar u ah inay arrintaas ka qayb qaataan fursaddaasna ay ka faa'iidaystaan waxaan aada u bogaadinayaa jaamacadda iyo IU oo aad iyo aad mataqaanaa gacan weyn siisay fursadna u abuurtay marka dabcan xataa waxaan advocacy u gelaynaa insha allah agaasimayaasha guud oo wasaaradaha jooga laftigooda inay yimaadaan ay kana qayb qaataan sababtoo ah waa waxyaalaha aan rabno inay bulshadeena wax laga bedelo barnaamijkan local governmentiskana uu yahay barnaamijka ugu weyn ee dowladdu base u yahay maadaama dowladda Puntland constitutionkeeda iyo dhammaan shuruucda dowladda Puntland u dhigan dhammaan ay sheegayaan in la gaarsiiyo adeegyada iyo serviceka bulshada qaybaheeda kala duwan taasi oo ay ka qayb qaadanayaan dhammaan hay'adaha dowladda especially wasaaradda caafimaadka wasaaradda waxbarashada wasaaradaha kale ee adeega bixiyo biyaha iyo dhammaan hay'adaha kala duwan ee dowladda laftigooda ay u tahay fursad kale ee arrimaha ku aadan dowladaha hoose iyo kor u qaadidda arrimaha administrationka ee public administrationka ee dowladaha hoose dhammaan waxaan bogaadinayaa aad iyo aad u bogaadinayaa arrintan hadda halkaan caawa laga daahfurahayo oo wasiirkii waxbarashada uu noo joogo iyo speakerkeenna oo ku-xigeenka oo maanta caawa fadhiyo fursaddaasna anigu waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa inay tahay fursad la rabo in laga wada faa'iidaysto wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ku sasaqaynaa guntii gebagabadii ilaa 2 qof baa inoo dhiman ka hor waxaan jeclahay inaan soo dhaweeyo gudoomiyaha guddiga aasaasayaasha jaamacadda Boosaaso ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda diinta iyo waqaafta Puntland Dr. Maxamed Cali Faarax soo dhawow gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Puntland wasiirka wasaaradda waxbarashada mas'uuliyiinta jaamacadda Boosaaso gudoomiyaha guud iyo gudoomiyaha faraca Garowe maamulka jaamacadda Boosaaso marti sharafta ka soo qayb gashay mas'uuliyiinta kala duwan ah mas'uuliyiinta ka socda jaamacadda IU iyo gabdho iyo wiilalba inta aqoon-yahanada isugu yimid xafladda tan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad bay runtii farxad iigu tahay caawa inaan ka soo qayb galo anoo ka mid ah asaasayaashii jaamacadda Boosaaso xafladdan lagu daahfurayo heerka labaad ee waxbarashada master degree oo ay iska kaashanayaan jaamacadda Boosaaso iyo jaamacadda IU ama International University in Uganda taasoo lagu bixinayo takhasusyo aad iyo aad runtii muhiim u ah oo ah takhasuska master degree oo public administration ah oo leh 2 takhasus mid ah human resource iyo local government iyo takhasuska ah shareecada ama islamic shareeca oo iyaduna master ah marka labada takhasus runtii aad iyo aad u qiimo badan waa ku faraxsanaa caawa daafurkooda inaan ka soo qayb galo guud ahaan runtii jaamacadda Boosaaso waxaan oran karaa safar dheer bay u soo gashay inay meesha ay caawa marayso ay soo gaarto laga soo bilaabo 2006
markii la asaasay oo ay ku bilowday barnaamij ah college level oo ah in jaamacaddu ay bilowday diblom ku bilowday hal sano ah ka bacdina ay u kobocday inay noqoto heerka koowaad ee jaamacadda ilaa iyo muddana ay ku shaqaynaysay ilaa laga hubsado in heerkii koowaad ee jaamacadda uu runtii marayo meel wanaagsan kadibna sanadkii lasoo dhaafay ayay waxay bilowday post graduate oo diplom level ah oo ay bixinayso ama la wadaagayso jaamacadda IU oo ah education diplom heer sare diplom sare oo waxbarashada ah caawana waxay ku dhiiratay inay digriigii labaad ama master digriigii inay runtii bilowdo iyadoo kaashanaysa jaamacadda IU oo ah runtii jaamacad weyn oo islaamig ah oo aad loogu kalsoon yahay tayadooda iyo aqoontooda iyo ammaanadooda intaba waa ku faraxsanaha runtii barnaamijkaas asaasayaal ahaanna waan soo dhoweyneynaa maamul ahaanna waa u soo dhoweyneynaa barnaamijkaas waxaanan u rajaynayaa inuu runtii barnaamijkaas guulaysto oo ay ka faa'iidaystaan reer Puntland iyo Soomaaliya intaba waxaa intaa ii soo raaca aan hadalka badinayn mas'uuliin badanna iga dambeeyaan labada takhasus oo runtii caawa halkan lagu soo bandhigo la daafurayo oo ah master degree waa laba takhasus runtii qiimo weyn u leh dawlad dhiska iyo bulshada guud ahaan gaar ahaan takhasuska public administration oo ah maamulka dawliga ah oo maanta runtii la jaan qaadaya Soomaaliya iyo isbedelada ka socda dhinaca dawlad dhiska iyo xoojinta iyo tayeynta hay'adaha dawliga ah waxaad moodaa inuu munaasab ku yahay master degree in la keeno oo ah waliba takhasuska human resource management ama qaabka loo maamulo maxaan ku yiraahdaa shaqaalaha iyo bani aadanka sida loo maamulo iyo takhasuska labaad oo ah local government oo iyaduna ah dawladaha hoose iyo deegaanka qaabka ay u shaqaynayaan runtii takhasuska labaad iyo takhasuskaaniba waxay la jaan qaadayaan Puntland marxaladda ay ku jirto iyo guud ahaan Soomaaliya oo ay Puntland u jihaysatay waxa lagu magacaabo dimuqraadiyeynta iyo hanaanka xisbiyada badan ama multi party system taasoo runtii u baahan marka ugu horeysaba in lagu tartamo golayaasha deegaanka ama waxa la yiraahdo local government in marka la helo takhasusaad aqoon dheeri ah siinaya dadka ku jira fieldigan iyo guud ahaan dadka u shaqeeya dawladda amaba dadka ka shaqeynaya dawladda hoose aad iyo aad bay waxay u leedahay macno weyn runtii waxaan isleeyahay runtii barnaamijkaani wuxuu u faa'iideynayaa gaar ahaan local governmentigu wuxuu u faa'iideynayaa dhammaan inta ka shaqeynaysa golaha deegaanka oo ay ka mid yihiin maayarisku iyo dad kaloo la shaqeynaya sababtoo ah waxay keenaysaa in ay dadkaasi aqoon u yeeshaan qaabka maaragtay loogu adeego dawladda hadday noqon lahayd qorshayaasha sida loo dejiyo siyaasadaha iyo hadday noqon lahayd qaabka loo fuliyaba si marka dadweynaha adeegiisa ay gudanayaan u noqdo mid macno leh oo tayeysan waa inay helaan runtii aqoontaas qiimaha badan oo ah master degree marka waxaan isleeyahay fursad qiimo badan in maaragtay caawa halkan lagu daafuro barnaamijkaas local government oo master degree ah raacsanna barnaamijka public administration waxaan isleeyahay in aad iyo aad ay uga faa'iideysan doonaan guud ahaan shaqaalaha dawladda gaar ahaan dadka u shaqeeya dawladaha hoose ama u adeega bulshada iyadoo maantay ay noqon doonto uu jiri doono in runtii loo galo doorasho qof walba uu codkiisa wax ku helayo oo laga yaabo runtii dad badan oo aqoon leh inay soo galaan fieldigaas qof kasta oo maayarnimo danaynaya ama danaynaya inuu golaha wakiilada golaha maxaan ku yiraahdaa deegaanka qayb ka noqdo amaba uu adeegyada bulshada uu maaragta bixiyo waxa uu baahan yahay runtii aqoon dheeriya inuu helo taasina waxaad moodaa caawa halka kan barnaamijka lagu soo bandhigay inuu qayb ka yahay sidoo kale shaqaalaha iyo tayeyntooda waa barnaamij muhiim ah oo master degree ah iyaduna waxaan isleeyahay
aad iyo aad buu barnaamijkaasi u qiimo leeyahay in ay shaqaalaha dowladdu ka faa'iidaystaanna way tahay gaar ahaan jaamacadda boosaaso oo runtii takhasuskaas heer bajolar bixinaysay iyo sidoo kale jaamacadaha kale oo dalka iyaguna bixinayay inay helaan ardaydu master degree aad iyo aad bay waxay ugu tahay fursad waxaan rajaynayaa in laga faa'iidaysan doono iyana sidoo kale takhasuska islaamic shariica oo runtii arday badan oo dhigata jaamacadaha dalka sida jaamacadda East Africa iyo jaamacadda boosaaso oo u baahan takhasuska shareecada inay runtii sii wataan si ay ula jaan qaadaan culumta casriga ee shareecada la xiriirta sababtoo ah maalin walba mustajadaad fara badan ayaa ku soo biiraya caalamka oo u baahan jaanibka sharciga ah in maaragta laga eego meesha uu qofku ku garan karo aqoontaas ama ku gaari karo ama fatwada ku bixin karo amaba uu arrintaa ku taxliilin karaana waxa weeye inuu barnaamijkaas digriiga ah ee masterka uu takhasus ahaan u qaato aad iyo aad ba marka takhasusaadkani muhiim u yihiin waxayna keenaysaa in runtii arday badan oo aqoon u leh cilmi baarista oo aqoon u leh istiraatiijiyaadka qaabka loo dejiyo oo aqoon u leh sida qorshayaasha loo sameeyo oo aqoon isla markaas u leh qaabka loo fuliyo iyada laftigeeda inay u soo baxaan dalka iyo dadka sidaa daraaddeed waxaan ku dhiirigelinaynaa dadka u shaqeeya dowladda gaar ahaan dadka dowladaha hoose u shaqeeya iyo shaqaalaha dowladda guud ahaan iyo ciddii u baahan inay takhasusaadkaas aad iyo aad uga faa'iidaystaanba inay fursaddaas sidii luqmaan yiriba inta ay sii jiri doonaan barnaamijyada noocaana ama fursadahan oo kale la helayo runtii lama oga caawan fursada haysanaa weliba jaamacad weyn ayaa barnaamijka bixinaysa oo runtii lagu kalsoon yahay oo jaamacad islaamiya ah aqoon iyo sumcad wanaagsanna leh marka waxaan ugu yeeraynaa dhalinyarada wax bartay oo haysta bachelor degree-ga iyo dadka khibradda weyn leh oo dowladda muddo u soo shaqaynayay oo u baahan barnaamijyadan inay ka faa'iidaystaanba in aad iyo aad looga faa'iidaysto annaguna jaamacad ahaan iyo dowlad ahaanba aad iyo aad baan u soo dhawaynaynaa waxaanan u rajaynaynaa barnaamijkaas inuu guulaysto waxaan u mahad celinaynaa ayu iyo madaxdeeda iyo madaxda iyo maamulka jaamacadda oo runtii iyaguna dadaal badan bixiyey barnaamijkana waxaan leenahay in sha allahu tacaala ha guulaysto dhammaantiinna waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu gabagabadii waan kusii saqaynaa waxaan jeclahay inaan haddana soo dhaweeyo wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda puntland cabdullaahi maxamed xasan la soo dhaweeyo wasiirka gudoomiyaha ku-xigeenka baarlamaanka puntland wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda agaasimayaasha guud oo qaarkood halka joogaan howlwadeennada guud ee jaamacadda boosaaso marti sharafta ardayda culimada iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha oo ay ku jiraan saxaafaddu dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu runtii farxad gaara bay ii tahay aniga caawa inaan mar labaad ka qayb galo xaflad Boosaaso University of Garowe ay ku marti qaaday ayu programyadeeda mid ka mid ah kii hore ee ahaa educationka ama waxbarashada baan joogay goobjoog u ahaa waxaan xusuustaa bishii March 15keedii halkan magaalada Garowe waxaa ka socday shirkii wadatashiga Puntland ayaamahaas ayaa waxaa noo yimid tiro professor ah oo 4-5 ah oo Uganda ka yimi oo jaamacaddan ka tirsanaa dhammaantood waxaa dhacday markii aan barnaamijkaas daah furnay shaqadii ay bilaabantay waa tii shutdown-ku inagu dhacay professoradii bil iyo bar baan waxaanu ku haynay magaalada Garowe marna hotel marna Chitek oo ay noo deganaayeen muddo badan waayo diyaaradihii baa la joojiyey muddo aad u tiro badan nimankaasi runtii waxay ahaayeen niman cajaa'ib ah oo very committed dad committed ku ah jaamacaddan ayu inay waddankan ka hergasho habeen kasta waa u tegi jiray waa la sheekaysan jiray waxay ahaayeen niman raba
barnaamijkan caawa laynoo keenay iyo wax la mida oo ka qoto dheer inaynoo keenaan runtii maalintii aan xafiiskayga ku qaabilay baa waxaan ku yidhi waxaan weydiiyey professioniska waxyaabaha ay bixiyaan oo maaragtay wixii ka dambeeya shahaadada koowaad shahaadada labaad shahaadada saddexaad waxyaabahaasaan weydiiyey waxaan marka maalintii ku yidhi waxaanu aada ugu oomannahay marka hore shahaadada labaad in dhulkan laga hirgeliya noo raadiya waa ballan bay yidhaahdeen daadis waayo aan caawa ugu faraxsanahay marka in ay 2 takhasus oo ah shahaadada labaad caawa halkan inoo keeneen runtii waa farxadda aan leeyahay waa farxadda labaad ee aan kaga soo qayb galay halkan caawa hadalkii uu soo jeediyey faraha badnaa uu soo jeediyey ninka khabiirka ee ka socda waad xusuusataan qaybtiis waxaa ka mid ahaa si loo helo PhD waxaa ka horeysa in master's degree la helo si maaragtay tadawurka noocaasa loo gaadho in waxyaabo noocaas la sameeyo marka waxaan leeyahay caawa master degree-gii oo 2 takhasusa waa inoo keeneen codsiga ku xigana waxa weeyaan waa doctorada insha allah aniga iyo PhD-da halkan Ugandan tegay mar iyadoo arday fara badan oo Soomaaliyeed oo kuwa Puntland ay ugu badan yihiin jaamacadaha Uganda lagu dhibo waa laga yaabaa rag halka caawa jooga inay joogaan muddo asbuuca aan joognay arday badan oo 100 iyo 1000 ku dhow oo reer Puntland ayaa jaamacado fara badan oo Uganda ku yaala baa shahaadada darteed ay dhibaato ka haysatay aniga agaasimayaasha wasaaradda baa tagnay asbuuc baan joognay tiraba waxaan booqanay 5-6 jaamacadood aan ka dhaadhicinaynay shahaadada Puntland ee secondaryada laga soo baxo iyo ta lagaga soo baxo jaamacadaheenuba intuba inay wax sax yihiin haddaa rabtaan saxnimadeedana meeshii laga raadin lahaa iyo website-dadii kuwa jaamacadaha iyo kuwa wasaaradda waxbarashadu ay leedahay baanu si toos ah u siinay ilaa iyo maalintii qayla kama yeedhin jaamacadaha Uganda barnaamijkii aanu soo samaynayna waa guuleystay marka runtii waxaan isleeyahay Uganda jaamacadaheeda qiimaha ay xagga ku leeyihiin bay halkanna inoogu keenayaan inaynu ka faa'iideysano waa danteenna waxaan aad ugu faraxsanahay oo aan runtii aan aad u soo dhaweynayaa hadalladii qiimaha lahaa ee halkan ka baxay qof walba oo uu hadlay uu danaynayay arkayayna faa'iidada uu inoo leeyahay barnaamijkaani inoo leeyahay annaguna ka wasaaradda waxbarasho ahaan runtii boqolkiiba dhowr boqol baanu soo dhaweynaynaa jaamacadda IU iyo kuwa kale oo fara badan inay noo yimaadaan xalay waxaan joognay jaamacad kale oo 15 arday oo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka uu ku jiro ay ka qalin jabiyeen jaamacad kale oo online bay ahayd first fleetkii ugu horreeyay baa xalay qalin jabiyey marka waxaad dareemaynaa dalkeenna inay ku soo badanayaan jaamacadaha nooca kana oo runtii aynu u baahannahay dalkeennu burbur buu galay 30 sano ah marka dib u kabashayn jiro dawlad dhis nidaam dawlad dhis oo Dr. Maxamed Cali Faarax wasiirka uu ka sheekeynayay runtii baynu ku jirnaa aad baan maaragtay u soo dhaweeyay public administration-ka labadan takhasus ee human resources-ka iyo dawladaha hoose oo halka kan xilligan la jaan qaadaya dawlad dhiska Soomaaliya wasiirku waa runtiis innaga dawlad dhis baynu ku jirnaa marka xagga hoose baynu ka dhisaynaa waa bottom up soo maaha kor baynu wax u wadnaa in dalkeennu hoos ka dhismo oo ka hagaago oo aynu hadda la jaan qaadnona wasiirku waa ku saxan yahay annaguna waa ka shaqaynaynaa waxaan kusoo gebagabeynayaa runtii jaamacadda Boosaaso University horumar la taaban karo ayaa u bilowday oo ah in ay arday Soomaaliyeed oo waddankan jooga oo shahaadada koowaad haysta ay u keeneen halkii ay ka aadi lahaayeen maaragtay second degree ay ka qaadan lahaayeen weliba dhalinyaro fara badan ayaa maadaama mashruucan labadan takhasus ee public administration-ku uu hadda aynu la jaan qaadayno dee rag fara badan oo meelahan jooga oo shaqa meesha ka bannaane niman yahow halkaas aynu u yaacno halkaas aynu u yaacaynaa maadaama dawlad dhis iyo dawlado hoose iyo elections iyo aynu dhisayno oo hadda 3 degmo aynu tijaabinay waxaan isleeyahay 50 iyo dheeraadka waa la tijaabinayaa agaasimaha wasaaradda arrimaha gudahana runtii si fiican buu ugu dheeraaday waa takhasuskiisu waa shaqada uu hayo oo marka iyadoo
agaasiba waxaa lagu keenay raggii aad dhiiri gelin lahayd oo oran lahayd war ceel meeshii aad ka soo cabbi lahaydeen waa arkay niman yahow halkaa u yaaca Boosaaso University takhasuskaa soo qaata hadda ka bacdi shaqo raadin laydinku dhibi maaye ina shaqo abuurkii hadda u imanaya marka muddo yar oo 2 sannadood ah baynu waxaynu ku xaqiijin karnaa inaynu soo saarno kaadiriin aad u fara badan oo takhasusyadan leh and beside maaragtay shareecada laftarkeeda aynu u baahannahay markaan waxaan is leeyahay waa nasiib badannahay oo nasiibkaasna jaamacadda IU iyo Boosaaso University ba inoo hirgeliyey aad bay ugu mahadsan yihiin madaxda Boosaaso University aad bay ugu mahadsan yihiin madaxda IU de saaxiibadeena aan afkeena ku hadlayna waa ka raali gelinaynaa inaynu Soomaali ku hadlayno waa meesha tani waa public anagu government officials baan nahay waa khasab inaanu luqadda ku hadalno Soomaaliga marka waxa weeyaan idinka u turjumaya hadhowto raggaas waa aad iyo aad baad u mahadsantihiin ka soo qaybgalkiina iyo xuduurkiina maasha Allah gabdho fara badan baan arkayaa halka kan iyaga laftarkooda aan u malaynayo inay danaynayaan ama jaamacaddaba dhigtaan ama ay danaynayaan inay master's degree qaataan soo dhawaada maxamed cali maslax iyo maamulaha guud ee jaamacadda Boosaasona waxaan leeyahay aad baad ugu mahadsantihiin inaad ka shaqayseen barnaamijkan gabdho fara badanna inoo soo geliya jaamacadda weliba waxaynu ku dadaalaynaa insha Allah haddii ilaahay inooga dhigo inaynu hawl yarayno oo fududayno maaragtay shuruudaha ay leedahay iyo siyaabaha loo gelayo iyo scholarships inaynu raadino insha Allah waa ku dadaalaynaa wala wasaaradana way ka caawinaysaa insha Allah aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland ugu dambeyntii waxaa munaasabadeena qiimaha badan inoo soo xiri doona gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka dowladda Puntland Abukaati Cabdicasiis Cabdullaahi Cusmaan soo dhawow Cabdicasiis waa ardaydii horey jaamacadda Boosaaso uga qalin jabisay classmate bana oo aan ahayn soo dhawow wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland wasiirka ku-xigeenka cadaaladda arrimaha diinta dhaqan celinta iyo dastuurka Puntland maamulka jaamacadda ee guud iyo kan faraca Garowe ardayda jaamacadda maamulka ama wakiilada ka socda jaamacadda IU Uganda iyo dhammaan akhyaarta ka soo qayb gashay rag iyo dumarba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxaa sharaf ii ah runtii inaan xafladan qiimaha leh aan kala soo qayb galo maamulka jaamacadda labada jaamacadood iyo madaxda sharafta leh wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda cadaaladda runtii barnaamijkani caaway waa barnaamij reer Puntland oo dhan farxad u ah aynan u baahannahay sida jaamacadda Boosaaso ay ugu dadaashay waan ognahay 15 sano ugu dambeeyay oo sida gudoomiyaha asaasayaashu inooga warramay hadda inay samaysay dadaal aad u badan iyo horukac runtii cid walba ay ka marxanti kacayso barnaamijkan waxaan hubnaa inuu yahay labada takhasus ee halkan caawil inoo ku daafuray inay yihiin takhasusyo tayo leh oo ay bixin doonto jaamacad la hubo tayadeeda oo ka mid ah jaamacadaha ugu sarreeya dalka Uganda 10 jaamacadood ugu sarreeya ayay rankisa ka mid tahay runtii way adag tahay jaamacad noocaas oo kaleeta ah inay halkan lagu qanciyo inay timaado oo dadku wax lagu barto mar hadday inoo timid waxa loo baahan yahay inaynu fursadda qaaliga ah oo sidii Luqmaan sheegay aan la xaqiijin karin inay sanad iyo 2 iyo 3 sii socon doonto fursaddeedana caawa ay furan tahay inaynu ka faa'iideysano runtii waxaan qirayaa wasaaradda waxbarashada iyo maamulka jaamacadda Puntland ba inay dadaal badan ugu jiraan sidii tacliinta sare loo hagaajin lahaa gaar ahaan jaamacadda Boosaaso waan anagu ka mid ahay ardaydii ka baxday waxaan u baa inay tahay jaamacad runtii soo korristay tayo iyo tacliin sare oo runtii aad u sareysa waxaan wasiirkana gaar uga mahad celinayaa runtii dadaalka badan oo ku jiro oo ay ka mid tahay midaan hadda noo sheegay Uganda ugu tagay sidii shahaadada sare ee jaamacadaheena dalku bixiyaan looga aqoonsan lahaa jaamacadda dalka Uganda oo ardaydeena loogu fududeyn lahaa adeega ay halka u tagayaan tacliinta sare waxbarashada aad baan wasiirka iyo wasaaradda uga mahadnaqaynaa waxaan leeyahay
agaasima Juba ayaa ahaa arday ugu horreeyay waxaan rajaynaynaa in sida uu sheegay maaha qofku inuu ka shaqeynayo local government kaliya dadka maamulka dawliga ka shaqeynayo dhan ama hanku kaga jiro inay ka shaqeeyaan oo maamul daadejinta iyo adeega bulshada in adeeg hufan loo qabto oo dawli ah raadinaysaba barnaamijkan uu furan yahay waxa loo baahan yahay in laga faa'iideysto insha Allah taala aad iyo aad baan idinkaga mahadnaqayaa hadalkii iyo qiimihii wasiiradii iyo madaxdii jaamacadaha iga horreeyay baa yiri waxaan kale aad u soo dhaweynaynaa Dr. Bizazi iyo madaxda kale ee jaamacadda AU Uganda aad baan uga mahadnaqaynaa oo sidii wasiirku sheegay idinka u turjumi doona sida ay barnaamijkan ama tacliintan sare ee heerka labaad ee jaamacadda inoogu fududeeyeen waan uga mahadnaqaynaa waana soo dhaweynaynaa waxaan rajaynaynaa insha Allah takhasusyo kale in insha Allah dalka hirgelin doona noo keeni doona aad iyo aad ba mahadsantiin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh